wax ka baro taariikhda al-Khadir. maalin maalmaha kamid ah ayaa Nabi Muuse calayhi salaam wuxuu u khudbeeyay reer Bani Israa'iil khudbad aad u saameysay. markaasaa nin kamid ah dadkii dhageysanayay intuu istaagay buu wuxuu yiri Muuse ma jira qof dhulka jooga oo adiga ka cilmi badan. Nabi Muuse calayhi salaam isagoo ogaa inuu yahay nabiga kaliya ee Allah subhanahu wa ta'ala si directly ula hadla oo adduunkan hadda jooga, wuxuu ugu jawaabay ninkii oo ku yiri may aniga qof iga cilmi badan dhulkan ma joogo. Allah subhanahu wa ta'ala isagoo ka caraysan sababta uu Nabi Muuse calayhi salaam cilmiga isaga ugu celin waayay, ayuu Nabi Muuse wuxuu ku yiri waxaa jira addoomadayda kamid ah oo adiga ka cilmi badan oo magaciisa la yiraahdo al-Khadir. Nabi Muuse calayhi salaam Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ka dalbaday inuu u sheego al-Khadir meesha uu joogo si uu ugu tago oo cilmigaas uu uga soo barto. Allah subhanahu wa ta'ala wuxuu u sheegay Nabi Muuse al-Khadir inuu joogo meesha labada badood